mahad ilaahay ka sokow waxaan mahad celinayaa isbahda isbaahaysiga isbadaldoonka iyo cadaaladda intaa ka bacdigeed maanta shirkaygan jaraa'id wuxuu daaran yahay markii aan halkaa isbaahaysiga gudoonkooda iyo xildhibaanada intii badnayd aan ku kulannay waxaan isla lafagurnay in waddankani badbaado u baahan yahay kow waxaan ku heshiinay ummadda reer awdal u sheegaya oonan iskuna dhaarsanay intii joogtay in miisaaniyadda qaranka 6 gobol si siman loogu qaybiyo oo cadaalad ku jirto waayo SDF2 markan tusaale u soo qaaday awdal fayskiisii labaad 13 barajog ayaa ku xusan 5 gobol mooyane gobolka awdal kuma jiro gobolada qaarkood baa 3 meelood kaga xusan waxaan ka tagnay cadaalad darrada anu kulmiyana ahaan doona laakiin cadaaladdu meesha ay taalo maanta waddanku cadaalad buu baahan yahay maanta cadaaladda cid noogu heelisan coalition ama isbaahays la samaysan haddaan reer awdalna waxaan ka tagnay waxba qarsan mayne waxaad ku qarsataa oo ku qarsadaa bay Soomaalidu tiraahdo cadaalad darrada muuse madaxweynaha waddanka jooga maanta cadaalad darradiisa ayaan ka tagnay Soomaalidu waxay tiraahdaa meed la sii sido maxaa hebel waxa meed la sii sido marxaadkaas la sii sida oo ah kulankayagii 2 jeer ahaa maalintii aan hadlay in hawsha shirgudoonka ka hadlaynay in cadaalad loogu qaybiyo dadka way dhici weyd annagoo waliba nidhi 7 xuneeda mucaaradkan keenayna miskan soo saarayna codkoogii gudoomiye ku-xigeenka koobaad ban xaq u lahayn hana la siiyo ayaan jawaab weynay markan TV-ga ka hadlayna waa loo yeeray haddii aan sor fadhiisanayna haba yaraatay wax natiijo ah iyo wax reer awdal halka u yaalay waan soo taabanna ma jirto waxyaalaha iga yaabiyo waxa ka mid ah markaan hortagnay waxaan u baahanahay waxa labada kursi baa uu noo sheegay inuu 2 beelood kala siiyay oo habar jeceliya ka dhaxajis kala siiyay ay sidee ku dhacdaan niri xitaa kursiga labaad wuxuu 7 garxajisaan ku haya maalintii bandhiga la sameeyayna in qodax baan aragnay garxajiska uu sheegay in qodax baan aragnay markaan mar labaad ku noqonnay aan hor fadhiisanay ay sidee ku dhacdaan ku niri mid baan metelnaa gobol baan ka soo jeednaa intaas xubnood baan nahay war haddii aad 2 kursi baa naga qadisay waxaasan u soconnaa jawaabna lama siin war ma ina kaasa naga miisaan cuslaaday markaan nidhina wuxuu noogu jawaabay isaaq buu tirsanayaa isaaq buu niga bawal yaanagu madaxweyne Soomaaliland aan wadin hadduu oday isaaq noqday taasan ka tagnay taasan walaalaha iyaga cadaaladdoonkaan ugu biirnay reer awdalna waxaan u sheegaynaa kitaab Allah iyo dhaar ay intibaanada intii badneedo joogeen ku mareen in miisaaniyada marka la soo dhigo si siman loo qaybinayo haddii cabashada sidii hore aad ka dareeri doontaan oo barino isoo qayn doontaan kitaab Allah inuu maran ku waxaan maaminay wayna mareen wacad Allahna ku qaatay wax shilin oo dhaafsadayna ma jirto ummadayda waxaan cadaynayaa anugu xaq waxaad u lahaydeen inaad miisaaniyada wax ka heshaan ragana waan dhaariyay
waxaan hawshaa dhaafsiisanay gobolka awdal haddaan nahay xildhibaanada xisbiga kulmiye anigoo ah inta kalena u talinayo walaalahay leeyahay war dariiqa xaqa ah kitaab baa layni marin doonaa ilaahay baan u dhaarannay laba jeer baan madaxweynaha hortagnay jawaab baynu weynay war ilaahay baan nagu dhaarshiyeen ummaddeena innaga u turayno xaqa soo raacaan leh waxaanan ballan qaadayaa inaan codkayga ugu hiilinayo xaqu halka uu yaallo oo garabka isbedel doonka Cabdirasaaq Khaliif iyo Umar Jaamac iyo Cali Xaamid waxaan u mahadnaqayaa saaxiibkay xildhibaan Maxamed Xuseen Maydhane oo maanta halkan nala jooga go'aansadayna in uu aragti ahaan ku taageero isbahaysigii aanu dhisnay ee isbedel doonka ahaa iyo inuu ka jawaabo doonistii shacabka Soomaaliland ay u codeeyeen ee ahayd isbedel marka koowaad waa soo dhaweynaya waana u mahadnaqayaa marka labaad waxaan halkan ka cadaynayaa saaxiibkay sida uu isba xusay way kala qaybsanayeen reer awdal oo ragna waxay joogeen isbahaysiga ragna kulmiye ku harsanaayeen qaybtii koowaad ee doonistii reer awdal waanu ka jawaabnay isbahaysi ahaan washir gudoonkii golaha wakiilada inaanay ka maqnaan iyagoo golaha guurtidana ka maqan ee golayaasha qaranka ee laga dejiyo shuruucda inay xubin ku yeeshaan madlabka horaan uga jawaabnay Cali Xaamid Jibriil wuxuu isbahaysigu u doortay inuu noqdo xubin shir gudoonka ka mid ah kana mid noqoto goobaha lagaga faalloonayo ama lagu go'aaminayo xeer dejinta dalka xubin inuu ka noqdo taa horaan uga jawaabnay waxaan iyana runtii uga mahadnaqayaa inuu qaylo dheer halkan ku yimi oo yiri waxaan u baahanahay cadaalad resource-ka dalka dhammaantii wixii deegaankaasi xaq u leeyahay ama ha noqoto talada ama ha noqoto dhaqaalaha ama ha noqoto resource-ka kale ee dalka wixii xaq u leeyahay inaan ugu heelino oo saaxiibadayadii hore nala joogina runtii wixii ay u taagnaayeen ee u dagaalamayeen ee u hadlayeen aanay habeen ka seexanahayd maanta isaguna cod dheer oo wax shardi ah oo kale idinku xidhan ma jiro waxa kaliya ee aan doonayaa wardad iyo deegaan baan matalayaa cod baa la igu soo doortay codkaygu waxaan rabaa dadkayga inuu wax gooyo waxaan u ballan qaadaynaa Maxamed Xuseen Maydhane oo ku niyad samaanaysaa xubnaha isbahaysiga ee maanta kontonka ku dhow inay ku ballan qaadeen oo ku siiyeen hadday deegaankaaga ka soo jeedaan anigoo afkoodii ku hadlaya iyo hadday deegaanka dhexe ka soo jeedaan iyo hadday deegaan bari ka soo jeedaanba in xuquuqda dadka reer awdal si siman aynu u wada ilaalino ama miisaaniyadda ku jirto ama ha ku jirto maxaa mid kale oo hay'ada caalamiga international NGOs ku bixiyaan ama ha noqoto saami qaybsi ha noqoto ama wax ku saabsan maxaan idhaahdaa dhammaan xuquuq ay dadkaasi leeyihiin oo ay xaq u leeyihiin inaan kuugu helino kuugu garab istaagno saaxiib waxaan rubaa in ragga ka soo horeeyay joogay isbahaysigu inay rag qiimo leh oo arinta u taagnaa oo aad garab u heli doonto inta maqan ee dib wali sii eegaysana inaad ceelaliyo u tahay oo maanta adigu ninkii ugu horeeyay aad noqon doonto iyaguna ay kugu daba jiraan hawshu waa badan tahay culayskuna waa badanaya adiguna go'aanka aad qaadatay oo go'aan geesinimo leh waxaan filayaa inay iska quusan doonaan qoladaasi had iyo jeer ragga marka hore ma dhaqdaan oo ma dhowrtaan oo ma ilaashadaan marka dambena kama daba hadhaan marka adigana marka kula yaala waxa weeye war raggii ku dhaqan waayay shalayto ee ku hayn kari waayay ee ka jawaabi waayay wixii ay doonayeen dadkaaga iyo deegaankaagu maanta qaylada isu baxaysa raganimadeedii adkaysigeeda waa laga rabaa waxaan halkan rabaa inaan ka cadeeyo iyadana in uu xubnahayaga shir gudoonka isbahaysiga uu maanta nala joogin Cali Xaamid oo hawl shaqo magaalada Boorame ugu maqan runtiina uu lafdhabar u yahay hawlaha aan wadnay ee gobolka iyo arrimihii maxaan raahday horumarintiisa iyo ka hadalka xuquuqdiisa waxaana dhici doonta insha Allah taala xubnahaas gobolka awdal idamka ilaahay
tabashadoodaasoo dhammaystiran in annagoo isu dhan xubnihii reer awdal iyo xubnaha iyaga kale annagoo isu dhan in heshiis weyn oo ka turjumaya baahidooda oo ka turjumaya taageerada aanu u hayno haddaanu nahay isbaahaysiga inaanu iyadana qaban doono insha allahu taala. maxamed wuxuu ka turjumayaa dareenka reer awdal gobolka oo dhan. fariinta uu ku yimi maaha keligii, waa talo reerka iyo salaadiintii iyo aqoon-yahankii iyo dhallinyaradii iyo dadkiiba soo gaadheen. waa talo nala kaga soo daray Boorame iyo awdal uu nagu soo raacay. waa talo reerka oo dhan ka yimi. wuxuu ku hadlayaa afkii gobolka, afkii deegaanka, wuxuu halkaas ballan nagaga qaaday inaanu kula bahoobayno dareenka shacbiga awdal iyo horumarkooda iyo inaan mar dambe codkoodu uu noqdo mid meesha yaalla. saddex dhardhaar weeye meesha qaranka talintiisu. mid waa golaha wasiirada madaxweynaha magacowda eriya, laakiinse ninkani waa nin shacbigiisa soo doortay, kalsoonidii shacbigiisa ku fadhiya, aanay cidina eri karin la dadku ay codkooda kala noqdaan mooyaane. maanta wuxuu ku hadlay codkii dadkii soo doortay ayuu dareenkooda muujiyey oo uu muujiyey inuu iyaga ugu gelayo isha, baahidooda halka ku jirtan uga soo saarayo. taasoo annagana wacad nagaga qaaday, aanu kula ballanay inaanu dareenka reer awdal miiska saari doono mar balbana uu noo ahaanayo mataqaanaa waxyaabaha ugu horeeyaan wax ka qabanayno. waanu mahad celinaynaa shacabka reer awdal sidii wanaagsanee noo taageereen salaadiin, dhallinyaro, haween iyo sida ay noogu soo wadaan xildhibaanadoodii kalena aad baan u mahad celinayaa.